in la kaydiyo dhiigga iyadoo lagu cabirayo cimilo ku filan xilligan Soomaaliya kuma badna iyagoo dhalinyaro iskood isku abaabulay ayay haddana shaqadan bilaabeen. Dr. Axmed Cabduqaadir Maxamed oo ah gudoomiyaha xarunta bixisa adeegga dhiigga ee Banaadir Blood Service ayaan weydiiyay sida uu fikirkan ku yimid iyo inta ay la eg tahay culayska in la xakameeyo dhiigga bini'aadamka. runtii horta culays badan jiro oo keydinta dhiigga ah oo dareemi kartaa waa adeeg dawli ah oo la rabo dawladda inay qabto oo ay xaruntii bangiga dhiigga ay soo nooleyso taasina waxa dareemi kartaa markay qabanayaan dhalinyaro mutabiciin ah culayska ay kala kulmi karaan haddii ahaan lahayd dhanka financiga haddii ahaan lahayd dhanka dad mutabiciin oo dhiig deeqayaal ah culaysyada aad bay u badan yihiin dhalinyaro badan oo baratay bahda caafimaadka ah runtii markaasaan wada fadhiisanay oo aan istusnay inaan arrinkan waddankeena uga ziyaadino aan wax uga qabanno alxamdulilah fikirkii maalintaas u fadhiisanay wuxuu noqday fikir miro dhal ah oo hoggaan sare yeeshtay waxqabad fiican yeeshtay. mid ka mid ah shakhsiyaad sadaqaysanaya dhiiggiisa oo aan goobta kula kulmay ayaan weydiiyey sababta uu dhiiggiisa u shubayo iyo sidoo kale sida uu arko in dhiiggiisa uu sadaqaysto. bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa Zikriya Xasan Jaamac Gorod. waxaan dareemay caqabado badan oo ka jira dalkeena inuusan lahayn bangi dhiig waxaa dareemay oo kaleeto in macnaha uu furan yahay dhalinyaro sidaan oo kale isku xilqaamay oo Banaadir Blood Service oo kaleeto inuu furan yahay markaan arkay baan gurigay kasoo tagay oo waxaan go'aansaday inaan macnaha walaalahayga Soomaaliyeed aan ku sadaqaysto dhiiggay aan ku tabaruco. xarumaha isbitaalada oo xilliyada qaar ay dhacdo in dadku u geeriyoodaan dhiig la'aan ayuu Axmed Cabduqaadir ii sharaxay baahida ay xaruntan dabooleyso ee dhanka dhiigga ku aadan. ma soo koobi karno in maxay ahayday tirino waxyaabaha aan ka qayb qaadanay laakiin waxyaabaha aad loo xasuusto waxaa ka mid ah qaraxii 14 Oktoobar iyo sidoo kaleetana qaraxyadii ka dambeeyay oo aan gaarsiinay gurmad dhiig isbitaalada ku yaala iyo baahida joogtada ah ee maalinlaha ah loo baahan yahay oo ay tahay hooyada iyo dhalaankeedii ay u baahan yihiin dhiig joogto ah iyo sidoo kale dadka xanuunada kala duwan qaba iyo aneemiga dadka ah oo ay dhiigga ku yar yahiin oo maalin walba u baahan dhiigga in la siiyo dhammaan waxyaabahaas ay ka mid ah kuwa aan ka qayb qaadanay si joogtan uga qayb qaadanay ilaa haddeertaan uga qayb qaadanaa. shaqada ay hayaan ee uu igu sheegay in aysan jirin cid ka gacan siisa ayuu sheegay in uu dalbanayo Dr. Axmed Cabduqaadir in bulshada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya gacan ka geystaan shaqada ay shacabka Soomaaliyeed u hayaan. runtii baaqa aad u weyn yahay waxaan soo jeedinaynaa inaan gacmaha iswada qabsano oo aan soo nooleyno xaruntii bangiga dhiigga ee Soomaaliya waayo anaga waxaan u jeednaa qarax iyo xabad dadka ay dishay laakiin uma jeedno maalin walba inta qof nooga dhimato dhiig la'aan ka jirta isbitaalada mala soo koobi karo. waxaan dhihi karaa inta xabad ay naga dishay waxaa ka badan inta dhiig la'aanta nooga dhimata ka badan. haddaan gacmaha wada qabsano xarun waa wada furi karnaa waxaan $100,000 dhameen ku baxaayo adeegaas qalabkiisii iyo maxay ahaydey diyaargarowgiisii intaasna annaga contribution iska qaadi karno annagana dhisa karno haddaan gacmaha is wada qabsano. haddeertaan waxaan wadnaa qorshe aan xarunta kusoo siyaadinayno oo ay ugu horeyso in lagu siyaadiyo xarunta gaari ambulance ah oo aan wadno contributionkiisa inay Soomaaliyeed ka qayb qaataan. haddii aan helno gaarigaas ambulance-ka wuxuu noo fududeyn doonaa qof walba dhiig bixiye ah oo meel fog jiro inaan xaruntiisa uga tagno oo aan goobtiisa uga soo shubno oo anagoo u faa'iideynayno bukaanka walaalkeena ah. inta badan shacabka Soomaaliyeed ayaa si aad uga baahda dhiig xilliyada ay jirto xaaladda caafimaad ee lagama maarmaanka ah. Cabdillaahi Maxamed Cumar Daacad, Shabeelle TV.